waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha inay ila xasuusiyo sheeko uu nooga sheekeeyay isagu inta aanu musharaxa noqonin waxa gudoomiyaha xisbiga ayaan maalin isugu nimidnay Balgoole waxaan jeclaan lahaa waliba iga sii codsiyo kale in qolada xoghayntu ay qisada gaarsiiyaan madaxweynaha uu isagu nooga sheekeeyay waliba ahayd qiso waaqici oo dhaba uu isagu si dareen la nooga sheekeeyay ayaa maalin waxaan isugu nimidnay Balgoole madaxweynaha isagoo musharaxa xisbiga la kulmay dad iyagoo la isugu yeeray bulshadii ayaa wuxuu nooga sheekeeyay qiso ka dhacday isaga Balgoole ku dhacday oo ah qiso dareen leh oo tan anagu maanta u taaganahay tulamid ah wuxuu yiri anigoo safar ka imiday oo Itoobiya ku soo dhaawacmay oo ka soo lugeeyay herar ayaan u soo lugeeyay Balgoole anigoo dhaawac ah oo aan socon karin oo laba nin oo u dhashay deegaankuna ay sidaan ayaan Balgoole u soo lugeeyay deegaankayga maan tagi kareyn waxa ka socday dagaalo ehelkaygana leema geen kareyn oo dhaawac baan ahaa oo waxaan u baqay naftayda in dhaawac culus soo gaaro saadaradeed baan idhi Balgoole ii geeya dabadeetana waxaan imiday Balgoole la soo qaaday ilaa Balgoole waa layla soo lugeynayay wuxuu ilaa intaan herar ka soo lugeynayay Balgoole u soo socday afkayga jidin maan marin biyo igama daadegin anigoo dhaawac iyo gaajo iyo loon isku ka darsamay ayaa Balgoole ardaa la soo dul jiifiyay ardaaga waxa lahaa islaamnimka inay ahayd ay isu noo sheegay Jamaad Ismaaciil odayga caga dablay oo lahaay dabeetana Jamaad Ismaaciil ba ardaageedii la soo dul jiifiyay ugu yaraan 5 cisho af waxba maan gelin anoo gaajadii iyo dhaawacii isku ka darsamay ayaa ardaaga Jamaad Ismaaciil soo dul jiifsaday dabadeetana anoo isla talo ma dhaawacaad u dhiman doontaa mise gaajadaad u dhiman doontaa oo Balgoolena laga wada qaxay oo cidi joogin oo warwarayo isla talo ma dhaawacaad u dhiman mise waxaad u dhiman doontaa gaajada ayaa Jamaad Ismaaciil oo markaa Allah u naxariistay caga dable uu xabad roodiyo uga keenay Hargeysa oo kala soo qaxay Hargeysa uga keenay oo xabada roodida 8 ciyaal leh isla u qaybi ayaa la yiri Muuse Biixi ardaagaaga dul jiifa oo gaajo iyo dhaawac bay sura dul jiifa dabeetana waxaan ku dhibay tir ciyaalkii aan ku yiri 8 ciyaal ahaayeen markaa lahaa ee jabkan roodidaan dii googoynaya iyo waxaan isu qiimeeyay tir ninka dhaawac iyo gaajada la dul jiifa ardaagayga iyo maadsiisa ciyaalkaygii baan ku dhibay tir abtigiin ba Hargeysa ka imanayo idin keenay roodiye ordo kaga hortaga gaari mala imanaya markaas oo Hargeysa ka imanay dabeetana gaarigii bay ku wada yaaceen beet gaajo iyo luunka ay dirtiibay gaariga Hargeysa ka imanay wada yaaceen beet dabeetana Muuse Biixi baan xabadii roodidaan 8 ciyaal ka qadiyay ee ka gaajoonayay ee aan ilaa xalay waxba ka siinin ayaan isaga ku qabtay tiroon afku galiyay dabeetana markaasaan wuxuu yiri isagu markii aan xabadii roodidaha arkay intaan layba siinin aan arkayn la soo wado ayaan si naftu way ugu soo noqotay oo macal dhaawacii ka bogsoon kacay marka waxaan uga socdaa mudan madaxweyne islaantaas xabada roodida 8 ciyaal kaaga qadisay ee habeenka 8 ciyaal door bidayna gaajo ku seexiso ee adiga ku siisa ayaa ciyaalkeed xidhin kuwii ay gaajada ku seexisay aad maanta jeelasha ku jira kuwaas aan cafiskaaga dalbanay kaaga sii darana kuwa gaajada habeenka ku seexday ciyaalkoodii maanta way gaajisayna cid u shaqaysamayso waa 3 qodob isriya marka de hadaad adigu maanta dhar ku seexanayso kuwii habeenka gaajada lagu qadiyay mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa in kuwa dhalana si gaajoonayaan caaw iyaguna jeelasha dhexdooda ku gaajoonayaan afis madaxweynaha kaaga dalbanayna